Haddii aad ninkan goobtuu jooga iman lahayd, maxaa markiiba kugu soo dhici lahaa? Dabcan Soomaali badani waxay isweydiin lahayd, ninkan kibirka ka muuqda maxaa uu meesha ka qabanayaa? Dabcan jawaabtu dhammaantiin waan wada ognahay, ninkan goobtan waxa uu ku karinayaa cunto. Cuntada uu ku karinayana koboley qof Soomaaliya kama iibsamayso. Haddaba ninkan iyadoo ay sidaa tahay goobtan uu fadhiyo waxa uu leeyahay macalimiil aad u fara badan. Dad badan ayaa waxay isku dayayaan in goobtiisa ay ugu yimaadaan kana qaataan muuqaallo si ay dadka ugu soo bandhigaan. Ninkan waxa uu leeyahay boqolaal kun oo macaamiil ah. Waxa uu dhashay dalka Hindiya. Ninkan cuntadiisa iyo magaciisaba waxaa loo soo gaabiyaa Bohot Food. Xariifkani waxa uu leeyahay macaamiil badan, weliba wax uu kaga dararay kibirka iyo isla weynida iyo qaabka uu la hadlayo macaamiishiisa. Dabcan qof kasta oo macaamiil fara badan leh, inkastoo dadku kala duwan yihiin, haddana kibirka iyo isla weynida dad badan ayaa markay helaan nimcadu Ilaahay siiyey aan ugu mahadnaqin. Bal aynu wada fiirsano daba ninkan cuntada uu karinayo iyo macaamiishiisa. Uma malaynayo qof Soomaaliya goobtan intuu tago inuu cunto ka cuni doono. Laakiin dad bay cuntada ninkan uu karinayaa ay u tahay cuntada adduunka ugu macaan. Sanu wada jeedno, macaamiishu way iska soo daba dhacaysaa. Isagu cuntada iyo agabka uu isticmaalayaba waxay yaalaan hareerihiisa. Qaar ka mid ah waxa uu ka soo qaadayaa agtiisa. U fiirso dhanka bidix ee uu ka soo qaaday caleemaha waxay yaalaan agtiisa. Maradan uu gacmaha iskaga masaxayo waxa uu dhigayaa agtiisa. Isla cuntada gacanta uu ku gurayo ama uu ku soo qabanayo waxa ku taabanaya lugihiisa. Sanu wada jeedno. Arranka yaabka leh ee dhammaan dadku ay iska indhatirayaan waxaa ka mid ah ee qofka Soomaaliga iyo qof kasta oo dunida kale ka yimid uu la yaabayo in goobta guud ahaan cuntada lagu sameynayo ama uu ninkan u fadhiya ay tahay goob aan nadaafadda ama caafimaadka u wanaagsanayn. Haddaba muuqaalkaygan laba qodob ayuu daaran yahay. Haddii uu qofku dadaalo si kastaba ha ahaatee waxa uu helayaa wax noloshiisa kafeeya ama ku filaada. Ninkan isagoo goobtan fadhiya haddana arsaaqadiisa waxay ugu timaadaa goobtiisaas isagoo weliba sanka taagaya. Dhanka kale, nadaafadii diinteenu waxay kow ka dhigtay inuu qofku markastaba haddii uu salaad tukanayo iyo haddii uu wax kala qabanayaba inuu nadaafadda uu kor u qaado nadaafatu min al-iimaan. Haddaba ninkan iyo isla weynidiisa waxaynu kusoo gabagabaynaa muuqaalkeena maanta. Waxaan leeyahay asxaabteeda qaaliga aad baan idin salaamayaa. Waa inoo mar kale iyo muuqaal kale.